madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa u gudbiyay baarlamaanka dalkiisa hindisaha ay ku ansixinayaan xubinimada NATO ee Sweden. Dowladda Mareykanka ayaa tallaabadan soo dhaweysay. Sheekadan haddaba waxaa la socday wariyaha VOA-da ee Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo qolka wararka hadda ku sugan. Cabdixakiin marka hore soo dhawow marka xiga go'aankan Erdogan goorma ayuu soo baxay muxuuse uga dhigan yahay codsigii dalka Sweden. way maxamedow aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay go'aankan ayaa shalay tole isniintii soo baxay isla markaana dowladda Turkigu ay ku shaacisay bogga Twitter-ka ee haatan loo yaqaan X iyadoo si kooban ay arrinkaas ugu sheegtay isla markaana aan faahfaahin aan uga bixinin waxaanu noqonayaa maxamedow go'aankani mid madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku saxeexay isla markaana uu habraacaasi ugu gudbiyo baarlamaanka waddankaasi si ayaguna u waafajiyaan shuruucda iyo qawaaniinta waddankaasi oo ay u eegaan hanaanka waddankaasi uu ku ogolaanayo ama uu ku diidayo kaga go'aan qaadanayo rabitaanka ama codsiga waddanka Sweden uu ku doonayo inuu kaga mid noqdo ama xubin kaga noqdo gaashaanbuurta NATO iyadoo baarlamaanka loo gudbiyay isla markaana iyaguna ay eegi doonaan waxaana xusid mudan maxamedow in madaxweynaha waddankaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu hore dhowr jeer oo kala duwan ugu celiyay oo ay ugu dambeysay bishii July ee aynu soo dhaafnay in uu qoraalkan ama habraacan samayn doono baarlamaanka u gudbin doono si ayaguna go'aan uga qaataan marka waxay ka dhigan tahay in dalabkii waddanka Sweden ay doonayeen oo waddanka Turkiga la eegayay iyo ballanqaadkii maalmihii ugu dambeeyay uu sameeyay madaxweynaha Turkigu oo kaga dhabeeyay u gudbiyay baarlamaankana la eegi doona waan gartay Cabdixakiin waxa jiray in Turkigu shuruudo ku xidhayay dalka Sweden shuruudihii miyaa la buuxiyay bay ka dhigan tahay tani maxamed shuruudahaasi way badnaayeen qaarkood ballanqaadyaa jira qaarkood waxbaa laga bedelay qaarkoodna hanaankooga way socdaan lama odhan karo waa la wada buuxiyey dhammaantood laakiinse isfahan baa waxyaaba badan laga gaadhay mar haddii muddo ay haatan doodii soo socotay iyadoo haddayna shuruudaha eegno oo aynu dib u xasuusanno tan iyo waddankan Sweden bishii May ee sanadkii 2022 markii uu soo gudbiyey codsigiisa ah inuu gaashaanbuurta ka mid noqdo waddanka Turkigu qodobo badan buu miiska keenay ama waxyaabo badan oo codsi ah iyo qaarkood uu ka dhigay shuruudo iyadoo ay ka mid ahayd in waddanka Turkigu codsaday in uu xubin buuxda ka noqdo midowga Yurub sidoo kale aqalka Congress-ka ama baarlamaanka waddanka Mareykanku uu isaguna ansixiyo lacag $20 bilyan oo oo uu ku doonayo waddanka Turkigu in uu ku iibsado diyaaradaha F-16 ama F-16 oo ah diyaaradaha dagaalka oo iyadana in muddo hawsheedu taagneyd sidoo kale waxaa cusub mudan in waddankaasi Sweden Turkigu uu ku eedeeyay in ay joogaan ama ay degan yihiin xubno u yaqaan argagixiso oo kamida ururka PKK ee kooxda Kurdiyiintu ay leedahay iyo waliba xubno iyagana lagu eedeeyay oo waddankaasi Turkigu la xidhiidhiyo in ay ku lug lahaayeen afgambigii dhicisoobay ee waddankaasi Turkiga ka dhacay sanadkii 2016 iyo sidoo oo kale tallaabooyinkii muddooyinkii ugu dambeeyay waddankaasi Sweden ka dhacay ee lagu gubay kitaabka Quraanka Kariimka oo iyadana aad u Turkigu uga cadhooday qodobadaasi iyo waliba kuwa kala duwan ayaa caqabad ku ahaayay waddanka Turkigu in muddo ah go'aankan u hortaagnaa waan gartay hadda madaxweynuhu uu gudbiyay hindisiisii baarlamaanka ayuu gudbiyay baarlamaanka u taalaasaan fahmay maxaa laga fili karaa baarlamaanka maxamed baarlamaanka waddanka Turkigu waxa uu ka kooban yahay 600 oo xubnood 600 oo xubnood ama xildhibaan 322 xubnood oo kamid ah xubnahaasi waxa iska leh amaba inta badan ay taageersan yihiin ilaahay madaxweynaha Turkiga xisbigiisa AK Party la yiraahdo iyo waliba xulafooyinkiisa kala duwan ay isba haysteen iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in aqlabiyadda amaba tiro ay ku ansixin karaan go'aankan in baarlamaanka uu haysto waxaana laga dhursugay oo in badan warbaahintuna ay falanqeynayeen dunidana ay ku haysay go'aanka madaxweyne Erdogan uu qaato inuu noqon doono karaajaxa ama asalka iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in haddii madaxweyne Erdogan uu ogolaaday in baarlamaanka ansixintiisuna rajadeedu aanay xumayn oo ay suurtagal tahay inay meel mariyaan waan gartay Sweden mudday sugaysay arrintan marka iyada iyo xubnaha kale NATO maxay ka yiraahdeen tallaabadan togan ee uu Turkigu qaaday waddanka Sweden way soo dhaweysay xaggeeda oo ra'iisul wasaaraha waddankaasi ayaa isagu qoraal soo qoray wuxuu ku sheegay in hawshan ay soo dhaweynayaan isla markaana haatan su'aashaasi jawaabteedu ay la taarlo baarlamaanka waddankaasi Turkiga taasoo macnaheedu tahay inay ogolaadaan ama ay diidaan waddanka Mareykanku isagu soo dhaweeyay oo afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu sheegay inay rajaynayaan in baarlamaanka Turkigu uu si degdeg ah u ansixiyo habraacaasi sidoo oo kale xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay rajaynayaan in waddanka Sweden
marka gaashaanbuurta NATO ay shirka wasiirada arrimaha dibadda yeelanayaan bisha November ee soo socota 28keeda iyo 29keeda isagoo xubin buuxa aynu ka soo qayb galo shirkaas inay rajeynayaan marka Sweden way soo dhaweysay Mareykan uu soo dhaweeyay midowga Yurub uu soo dhaweeyay waxaana isha lagu hayaa baarlamaanka waddankaasi Turkiga maxamed waan gartaad sheegtay baarlamaanka inta hadda lagu hayaa haddii bay dhacday inuu ansixiyo maxay taasi uga dhigan tahay Sweden ma xubin buuxday noqonaysaa mise wax kale oo la sugaya jira maxamed oo tan iyo markii isbahaysigan gaashaanbuurta NATO sanadkii 1949kii 12 wadan ay bilowgiisii bilaabeen iyadoo sanadkii 1991kiina markii midowga Soviet burburay xubno kala duwan oo iyaguna wadamo kala duwan oo iyaguna u badan wadamada bariga Yurub lagu soo biirinay intii kadibna ay wadamo kale ku soo biireen waxa shardiya in haddii wadan uu ku soo biirayo xubin ka noqonayo in dhammaan xubnahoo dhan wadamada dawladaha ku bohoobay inay wada ogolaadaan waxaan haddaan su-aashaadi u soo noqdo ay taasi ka dhigan tahay Sweden haddii imika Turkiga ogolaado baarlamaanka waddanka Turkiga ansixiyo waxa wali sii harsan waddanka Hungary oo isaguna wali aan ansixinin oo 100% aan ogolaanin walow wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Sweden ay warbaahintu ka soo xigatay isagoo sheegay in waddankaasi Hungary uu dhowr jeer ku celceliyay inaanu noqon doonin waddanka ugu dambeeya ee codsigaasi Sweden ay doonayso inay kaga mid noqoto xagga dambe ka gala marka taasoo macnaheedu tahay inaanu la raagi doonin isaguna marka labadaasi waddan haday ansixiyaan Sweden waxa uga dhigan tahay inuu markaasi xubin ka noqonayo wixii qoraal iyo habraaca uu la gali doono waan gartay aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wariyaha VO-da ku sugnaa qolka wararka VOA oo iga waramayay arrinta xubinnimada Sweden ee gaashaanbuurta NATO